warinamada dhalinyarta ah ee fasaxaya dunuubta war caafimaadkiina u baqa yaan culays idinka daba iman war dadkiina u baqa iyo ubadkiina iyo ooridiina yaan qodax idinka daba iman war diintiina u baqa oo raasamaalkiina hawaayina war ragga da'yartee dhalinyarta ah ee ku indha adag inay yidhaahdaan warqad baanu qoraynaa war ilaahay dartii baan idinku nasteexaynaya war waxa suurowda adoo jilicsan oo dhulka u dhacay inaad tidhaahdo yaa laytani maxaa igu watay inaan dembi fasaxo war waxa suurowda adoo caafimaadkaagii waayo culays kugu dhacay inaad ilmayso tidhaahdo maxaa igu watay war waxa suurowda adoo tala aanay fara kuugu jirin inaad nadaamooto war ragga dhalinyarta ah ee qaarkood diinta ay si fiican u garanayaan war ha dambaabina war lafihiina u tudha war dadkiina u tudha war dawladdiina u tudha war haddii xoog iyo awood gacanta alla kuu geliyey war waad imtixaaman tahay imtixaan baad ku jirtaa imtixaankaa ku dhicin war maanta saxiixaaga hadduu ku xidhan yahay waxaad fasaxdaa ama aad joojiso war hooy hadda waad imtixaaman tahay farta iyo qalinka aad qorayso waad ku imtixaaman tahay waayo alla ku eegayo ku daalacanaya war imtixaankaasi ha ku dhicina war ilaah baan idinku dhaariye diintee iyo dadnimadee bay ku bannaan tahay inanta 8 jirka ah hotel xamdaan keena iyo inanka 8 jirka ah aktar ha noqdo jilaa film caalamiya oo talyaani iyo waxa weeyaan Kenya waxa weeyaan la geynayo war diinta ogolaatay halkay ka timid ma tuantii nabi maxamed ahayn ba sallallahu alayhi wasallam war dhaqanka ogolaaday halkuu ka yimid war dhaqankeeni baaba abuu ku dhow yaho dagaal baa ku socda maanta waxay soo maroolay tusay ay ruux yaani waxaan idin sheegayaa xayaha iyo xishoodka halku marayo ba macna saa u qiimaysaan halkaynu maanta marayno ilaahay dulqaadkiisu mayna ku socona ayeeyo ama sodo ama ruux waalida oo aan filaayo ninkayga aad arkaysaan inaan ciroobay inay iga sii weynta aan rajaynayo oo haddana 12 jir waxaan ku jeclaaday waa la wareysanaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hadda maanta waa ayeeyo ama waa sodo ama waa cimri iyo caga tagay maxay ka waramaysaa 12 jir markay ahayd waxay jeclaatay hadda waxay idin sheegaya xayaha halku marayo way idinka arkay wehel jacayl waxa la soo bandhigaya waxa lagu leeyahay lamaanayaal anu tanaan jeclaaday anna tanaan jeclaaday war jacaylku bedroomka iyo qolka hurdadu ahaaye ma banaanka iyo suuqu ahaa war jacaylkaad u qabto qoyskaaga iyo xaaskaagu ma wax banaan loola soo baxo ahaayo la yiraahdo tanaan jeclaado tanaa sidana war wixii la qarin jiray la xishoon jiray ayaa maanta dadka looga dhigay caadi waa si dareenka xishood intuu ka dhamaado xumaha aan looga xishoon oo dambiga banaanka loola soo baxo waxaan qodobka kaga baxaya dawladda iyo dadka mas'uuliyiinta ah gaar ahaan ragga dhalinyarta iyo da'yarta maanta mas'uuliyadda haya la xajecla iga kiin qabto waan idin la xajeclaynaya wallahi wanaag baan idin la jecelahay wallahi idin habaari mayno nagama go'daan ducana nagamaydan galabsan hadaa dambiga ku socotaan war waxaan idin leenahay sidaad ku socotaan sax maahe war habaarka muslimiintana ha xambaaranina war dadkaana dambigooda yaan idinka la idin raacin war miyaydan xasuusnayn nabi maxamed inuu yiri sallallahu alayhi wasallam man sanna fi al-islam sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yunqasu min awzarihim shay ninka islaamka dhexdiisa ku jideeya xumaan ee dadka u horseeday lagaga daydo waxa korkiisa fuulaya macsiyada iyo dambiga uu sameeyo dadka u horseeday dambigii ka dhashay isaga xambaaranaya cid alla cidda kaga dayata ilaa qiyaamahana dambigaas yaani macsiyada dambiga ka dhashay qayb buu ku leeyahay waa xambaaranaya kii sameeyayna dambigiisa waa loo qoriyaa waxba laga dhimi maayo macnaha qof kastoo dambaabo kaga dayda dambiga qofka mid lamida ayaa kii sababta ahaana loo qoriyaa ee u horseeday dadka war itaal iyo awood badan idina war u adkaysi badan idina oo u sabir badan idina ina dambi xambaarataan oo cuquba ka dhalato oo ay idinku dhacdo
war ilaahay waa dulqaataa oo uu seeto dheereeyaa haddaad se gacantiisa gashaan cid idinka furfuri mayso ina allaha la yumlii lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflidhu ilaahay daalimka waa u kaadiyaa qofka dembaabay laakiin markuu qabto ma sii daayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid waa sidaa qabashada rabbiga dad markuu qabto qabashadiisu waa daran tahay cid ka furfuri kartaana ma jirto war intaydaan gacan alle gelin oo aan cidina idinka furfuri karin maantay talatiina tahay ilaahay ka baqa oo macsiyada iyo ubadka yaryar ee xamdaan lagu ballamiyey war ha u fasixina war ka joojiya waa berri shantaa la leeyahay war ilaahay ka baqa oo arrinkaas fasaxiina yaan ummaddu ku dembaabin inta xun ee dembiga doonaysaa maanta way badan tahay ninka sidiisa u dembaabayaa isagay saaran tahay idinku se sabab ha u noqonina ha u horseedina ha u sharciyeynina dembiga ha u jidaynina liisan iyo ruksad ha u siinina raggaa da'yartee inta badan ay ka soo noqnoqotay waanu fasaxnay intaasaan ku dhaafaya iyo dowladda guud ahaan wasiir iyo agaasimaba inay arrinkaa ilaahay kaga baqaan